shir jaraa'id oo maanta gudaha magaalada Boorama ku qabtay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Niyuucid mudane Ismaaciil Geelle Cadar ayaa waxa uu kaga dareen celiyay hadal qoraal ah oo saxaafadda ku baahiyay musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga mucaaridka ah ee Ucid aqoon-yahan Cabdirashiid Xasan Mataan waxana isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi aniga oo ah gudoomiyaha xisbiga Ucid ee gobolka Awdal waxaan u cadeynayaa shacabka iyo reer Awdalba in kelmadaas ka soo yeedhay dilqaafka ahayd una muteysan in lagu yiraahdo professorku ee ka soo yeedhay afka musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga Ucid uu yahay mid shakhsi ahaan isaga ku kooban ee una ahayn mid xisbigu uu la qabo fikir oo xisbigu la qabo sidoo kale una ahayn fikir uu la qabo gobolka waa fikir keligii ku kooban professor Axmed Ismaaciil Samatar dalka u baahan dadkana u baahan annagana u baahan siyaasiyiinta u baahan ma aha shakhsi miisaanka lagu sheegay unikaas ku sheegay leh fikir gobolka uu la qabana una ahayn taas oo ka muuqatay sidii fiicneed ee wanaagsaneed ee gobolka loogu soo dhaweeyay Cabdulla Ali Yusuf Khan Cable TV Boorama.